Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad ku mahadsan tahay in aad disho hooyaday. Subxaan Allah. Waa qiso murugadeeda iyo dhibkeeda leh oo aan idiin soo wado. Runtii aad la yaabi doontaan markaad maqashaan qisadan. Intaanan qisada bilaabin, halkani waa channelka Somali Islamic TV. Haddaad ku cusub tahay channelka ama aadan horey subscribe u saarin, hadda ayaan ku baaqayaa ee channelka subscribe saar, gambaleelkana furo. Waadna ku mahadsan tahay haddaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato. Innagana dhiirigelin bay noo tahay, adigana barnaamij kasta iyo mowduuc kastaan soo gudbino baad isla markiiba ogaanaysaa, waxaadna noqonaysaa dadka ugu horeeya ee daawada. Ku soo dhawaada qiso murugadeeda leh. Waxaynu soo wadnay saddex qiso horeynu soo marnay ku saabsanaa waalidkoo loo baarinimo samey waayo, bal iska daaya beddelkeed caaq lagu noqdo dhib loo geysto, cuquubada ay leedahay iyo waxa ka ratima. Waxaan filayaa dadkii la socday way soo maqleen, laakiin maanta waxaan idiin soo gudbinayaa qisooyinkiin soo marnay qiso ka yar duwan. Waxaa isweydiin mudan, maxaa ku kalifay dad badan oo ah dhalinta muslimiinta in ay waalidkood qaabkan ula dhaqmaan? Maxaa ku kalifay dhalinyaro fara badan oo muslimiin ah inay isku dayaan waalidkood in ay dilaan oo dhib u geystaan? Hawsha noocaas ah ayaa markii dib loo raacay waxaa la ogaaday in ay kaga dayanayaan dad gaalo ah, in ay kaga dayanayaan dhalinyaro gaalo ah oo waalidkood qaabka iyo qaab la mid iyo qaab ka daranba ula dhaqmay. Waxaan idiin soo xulay qisada ah waad ku mahadsan tahay in aad hooyaday dishay. Bal qisadan maxay tahay ila daawada. Nin dhalinyaro ah oo ka yimid bariga dhexe, dalalka carabta ka yimid, ba wuxuu jaamacad ka dhiganayay Jarmalka. Wuxuuna joogay caasimadda Jarmalka ee Berlin. Maalmahay jaamacaddu gabagaba u ahayd oo uu ka takharujay qalin jabinayay, baa wuxuu yidhi anoo dheeraynayo degdegayaan suuqa soo maray, gaadhigaygana aad baan u caydhinayay ama xawaaraan ku socday aada. Islaan cajuusada hooyo gabowday baa waxay ka soo leexatay waddadii dadku marayeen, kadibna waddadii gaadhiyaashu marayeen bay soo martay iyadoo socota. Islaantuun baan ku soo kadiyey buu yidhi, gaadhiga maan qaban karayn, xawaaro aadan oo ku socday. Nasiib darro waxay noqotay islaantii inaan meeshaa ku jiidho. Ninkan waa nin muslima, dhulkan ma laha isagu uu joogo, waa dhul uu joogo oo marti ku yahay, uu berri maalin ka laabanayo. Baa wuxuu jiiray islaan dhulkii u dhalatay oo meesha joogta. Meeshii boolis baa yimid, hawshii bay eegeen. Idan dhowr saac kadib aniga way fasaxeen booliskii, lambarkii bay iga qorteen. Waxayna dhaheen islaantu maamadu yadaa khaldan, islaantu khaladka yadaa lahayd, waddadii dadku marayeen bay ka soo leexatay, waddo aan dadka loogu talagelin bay timid, wax dambiga laguma haysto, wixii maadan annagaa kula soo xidhiidhana waa fasaxan tahay. Wuxuu yidhi 3 maalmood kadib baa waxay soo wacay nin dhalinyaro ah. Wuxuu igu yidhi waxaan ahay islaantaa aad jiidhay ee dishay wiilkeedii. Aad baan u naxay buu yidhi. Wuxuu iigu daray buu yidhi in aan kula kulmana waan doonayaan kuu imaado. Aad baan u naxay buu yidhi. Aad baan u qoomameeyey, aad baan u murugooday. Dabcan adugu maxaad fali lahayd? Allaba ma keenee, allana qof islaama kuma keenee. Qof aad hooyadii dishay oo aad jiidhay oo ku soo wacay oo kugu yidhi in aan kula kulmaan doonayaa, walwal intee leeg baa qalbigaa ku soo dhici lahaa, mise maxaad is odhan lahayd? Ka darane, dhulka la jooga waa dhul aad marti ku tahay ee dhulkaagi maaha. Dadka aad jiidhay wax kuu haysta dad muslimiin oo wax xeerinaya maaha, ee waa dad gaalo ah oo inay ku dilaan oo baangada kula dhacaan ama waxay doonaan ay kugu sameeyaan way u fududahay jariimadu. Wuxuu yidhi 3 maalmood kadib baan la ballamay, saacaddu intaa markay tahay, maalinta noocaasa saacaddu markay intaa tahay inoo ahaato. Wuxuu yidhi 3 maalmood 1 saac bay igu noqotay.
waqtigu dheereeyaa saddexdii maalmood anana waxba joogin waaba tan aad buu waqtigu igu dheereeyay buu yidhi saddexdaa maalmood si aan ahaa isma garanayn buu yidhi walwal walbahaar murugo baqdin cabsi malagu dilaya idan waxaan ku talagalay buu yidhi maalintaas inay tahay maalintii nolosha igu dambeysay sababtuna waxay tahay meelaad marti ku tahay ood qof jiidho oo qofkay dhashay kugu yidhi inaan ku imaadaan doonaya maxaad ka sugaysaa ninkaas waa inuu ku dilo wuxuu yidhi waxaa la gaadhay maalintii u dambeysay waxaa la gaadhay subaxuu ii imaan lahaa waxaa la gaadhay waqtiguu ii imaan lahaa waxaa la gaadhay saacadduu ii imaan lahaa gurigaygaan kula ballamay buu yidhi aan deganaa subaxaas wuxuu yidhi baraf baydoo qabow baa dhacayay anigu waxaan iska tireeyey buu yidhi dhididka murugada daraaddeed iyo cabsida daraaddeed bal wuxuu tilmaamay inankaasi inuu taagnaan kari waayo cabsi daraaddeed oo markuu istaago uu gariirayo oo ku siganayo inuu dhacaba oo gidaarka cuskanayo cabsidii iyo baqdin daraaddeed wuxuu yidhi albaabkii baa lasoo garaacay waan furay buu yidhi markaan albaabkii furay waxaa iga hor yimid buu yidhi salaan dheer ii soo taagay inan dhalinyaro ah oo qurxaan ah oo qoslayo faraxsan wuxuu yidhi gudi haddaan soo geliyo waxaan bilaabay inaan u cudur daarto aan dhaho khaladka anigaa lahaa waan egab daranahay khalad baan galay maamadii anaa jiidhay raalli ahow wax walba diyaar baan la ahay lacag intaa rabtaan ku siinayaa magteedii baan bixinayaa idan inaan u cudur daaro oo aan dejiyo horta bal qalbigiisa aan dejiyaan ku talagalay buu yidhi wuxuu yidhi markaan hadalkii dhameeyey buu igu yidhi istaji waxba ha calacalin waxba ha murugoonin waad ku mahadsan tahay inaad hooyaday disho aad baan u yaabay buu yidhi waan qariibsaday waxaan kala gara waayey buu yidhi ma adduun baan joogaa mise aakhiro waxaan kala gara waayey buu yidhi miyaan hurdaa mise waa soo jeedaa oo waxaan mariyaa mise caadi baan u soo jeedaa baan kala gara waayey waxaan kala gara waayey waxaan kula hadlaya ma insibaa mise waa jin waxaan kala gara waayey waxaan ma wax xaqiiqa mise wax khiyaaliya hadalka qalbigayga hadalka dhagahaygu ay maqleen hadal aan isiri weliga qalbigaaga kusoo dhacaya maaha qofaad hooyadii dishay oo kuleh waad ku mahadsantahay hooyaday inaad disho idan aad baan ula yaabay inanku wuxuu igu yidhi hooyaday inaad disho waad ku mahadsan tahay wuxuu ku daray 10 sannadood ayaan sugayay hooyaday inay geeriyooto dhimato laakiin way dhiman weyday geeridii aan hooyaday sugay inay geeriyooto inaad maanta hooyaday disho oo aad adduunka dhaafiso oo aad nafteedii soo gabagabayso hawlaana anigu shaqo aanan ku lahayn waad ku mahadsan tahay waxaanan kuugu imid in aan kuugu mahadnaqo in aad dishay hooyaday wuxuu yidhi hooyaday caymiska waxaa u yaala 80,000 oo maag oo lacag ah 80,000 ee maag ee lacagta hadda inaan qaato ayaa ii hadhay dabcan aniga ayaa iska leh hooyaday wax caruura oo iga waaweyn iga yaryar ay dhashay ma joogan aniga kaliya jooga hooyaday hantideeda 80,000 ee maaga ah aniga iska leh anaana qaadanaya hadda wax iga xiga inaan qaato oo ii diidayna ma jiraan marka lacagta maraan qaato waxaan sugayay 10 sano inaan lacagta qaato marka waad ku mahadsantahay hooyaday inaad disho wuxuu waan qariibsaday wuxuu igu daray bal iska daya lacag baan ku siinayaa aan kugu abaalguday dilkaad hooyaday dishay wuxuu aad baan u yaabay u qariibsaday markaan yaqiinsaday buu waxaan ila hadlay inuu qof yahay xaqiiqna ay tahay baan ku yiri buu inaad hadaadan wax ii haysan lacagna haysiine saa igu nabadgeliya waad mahadsantahay wuu iga tagay buu yiri xaafadii waan ka guuray buu ma aaminin buu yiri ma aaminin hadalkaas inuu run ii sheegayo ma aaminin xaafadii waan uga guuray igu yaqaaneen wuxuu yiri maalintaas iguna dambeysay wax dambo sheegayo hadal hayana ma hayo ninka saa u fakaraya hadaba ee qofkii hooyadii dilay oranaya waad ku mahadsantahay hooyada inaad disho waa gaal idan marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqmaya ama kula dhaqmaya hooyadood iyo waalidkood waxa ay wax la mid ah dabcan waxaasay arkeen waxaasay daawadeen yakuna intii bay doonayaan waalidkood inay ku dhuftaan waa cajiib markaynu dariiqa saxda ah
iyo dariiqa salafka ka leexano dariiqaasinu aadana markaan qisaskan dhamayno saa u foosho xun waxaynu u gudbaynaa dhowr qiso oo salafkii ah oo ina baraya bal qaabkay waalidkood ula dhaqmi jireen intaasaa mawduucina ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.